laygu naynaaso mararka qaarkood cali puntland waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo in yar oo dareenkayga iyo aragtidayda oo wanaag ku salaysan inaan idiin soo gudbiyo dadka Soomaalida ah ee horumarka jecel ama doonaya in ay caruurahooda iyo jiilasha soo socda in ay horumar sameeyaan, in ay adduunka ka qayb galaan, in ay Soomaalida magaceeda dhisaan. waxaan doonayaa Soomaalida wanaagga jecel ee ku nool dibadaha sida Minneapolis oo kale, waxaan doonayaa in ay gabadha dareenka fiican leh ee Soomaaliyeed inaad ugu helisaan Soomaalinimo iyadoo u sharaxan in ay mas'uul ka noqoto magaalada Minneapolis. gabadhu waxay noogu timi London, aad baan ugu soo dhaweynay, Soomaali uma kala harin. anigu xafladaan tegay, gabadhan waraystay, aad iyo aad baan yidhi diinadeedii iyo sidii u fakaraysay iyo wixii ay rabtay iyadoo gabar ah baa waxay igala ballaaratay Soomaalida qaarkeed si u fakaraan. marka waxaan doonayaa gabadhaas in loo duubto, in Soomaalinimo lagu doorto, in Soomaalinimo iyo magaca Soomaalida inta jecel horukaca Soomaalida iyo ka qaybgalka adduunka aynu doonayno inaynu dhex galno, wax la qaybsano shaqooyinkiisa hadday tahay muuqaalka qofnimo ama qofka Soomaaliyeed. aniga oo markaa soo gaabinaya inaan badiyo ma doonayo, waxaan idin leeyahay Soomaaliyey ha la doorto Ilhaan Cumar oo iyaan loo kala harin. waxa iga keenay in yaroo geeraanon halkaan mariyey waa aragtidii ayada aan ka arkay iyo sidii ay u fakaraysay. ragga iyo dumarku hadba waa qofkii higsasho leh ama dareen leh ama wax hogaamin kara ama mas-uuliyaddu. anigu carruur baan leeyahay, carruurtayda waa kala aqaanaa mid walba si u fakaro. marka gabdhaha hala taageero, raggu waa rag, laakiin gabdhuhu waa hoggaan baa raggu u yahay. waxaad la socotaan hees aan qaado oo la yidhaahdo waa wada macaan dumarku. marka heeskaas dareen baa iga keenay. waxay hooyadu tahay, gabadha aad dhashay waxay tahay eedada, habaryarta ama dumarka ama dee hooyo marka la yidhaahdo waad la socotaanoo hooyo waa lama huraan, waa waxa weeye guriga nolosha weeye. nimaan hooyo korinna ma jiro. waxay naga mudan yihiin marka dumarka inaan karaamayno, inaanu waxay ku fakerayaan oo wanaagsan ku taageero oo raggu taageero. waxaan idin leeyahay markaa gabdhaha hankayaan laga jabin, gabdhaha ha la dhiso oo weliba sida wanaagsan, dhinaca wanaagsan ha laga dhiso oo dareenkooda iyo waxqabadkooda. guri aan hooyo joogin waa mugdi, waxaan hooyo qabanna rag ma qabto. marka tixdii baan idin marinayaa. ragga iyo haweenkaba waa kii haleelee hilinkiisa qaadee wax hogaamin karaye. waxaa lagu halmaalaa, hormood lagu ahaadaa, lagu kala horeeyaa higsashada wanaagga leh, cimilada dareenka leh, horukaca ayaanka leh, hoodada nasiibka leh iyo howlkarnimadoo qofka heerka jooga. hal adaygu waa libin, hidaraacu waa sharaf. hanka lama wadaagay qof baa heerka sare iyo haybsada fogaantoo hadafkiisu meel yahay.
qofna meesha hoosiyo harka geedka kama kaco ma hawaysta qayrkiis waa habaasku yuurube yarta noo hubqaadee hidaheena wadatee soomaali u horraysee miyaa bulus hor qaadee puntland ku hirataay hogal bari ka curataay himilada karkaar iyo bayliyo harkeedaay ilhaan aabaheed baylu ka yimid markaa sidaasaan ugu maaragtay usoo qaatay bayla ilhaan hooyo dhaqaneey hantidii dalkaygaay horukaca dhulkaygaay hindisaha la yaab kale hiyi lagu dhaqaaqay horseedkii gabdhaha ay marka loo hardame ee halgan loo xafiiltamo annagaa hortaadiyo hareertaada qabanoo waa duca horteedee rabbigeenna hodanka ah oon hoostiisa joognaa kuu hiilinayo biri guusha waad heli waa ku bogaadinayaa waan ugu ducaynayaa marka gabadhaas waa in sida ay u fakarayso wax loola qabto oo aad isugu tagtaan haddaad Soomaali tihiin haddayba ku fakartay inay wax noqoto oo magaca Soomaaliyeed ku noqoto hadalka halkaasaan kaga baxayaa ilhaan cumar waxay u taagan tahay degmada 60B Minneapolis sanadkeeda waxaan leeyahay dadka degan halkaa eriyada 60B waxaan jeclahay in aad saboorti garaysaan ama doorataan gabadhaas da'da yar ee ku fakaraysa inay wax noqoto hadalka halkaasaan kaga harayaa waanad mahadsan tihiin guulaystaan idin leeyahay waada macaan dumarku marinka nolosheena midabka quruxdeena amuuska dhaqankeena waada macaan dumarku marinka nolosheena midabka quruxdeena amuuska dhaqankeena wamiraha tarankeena walaba mataanaynta wamadiga habistiisa wamaxasta korintooda wamiraha tarankeena walaba mataanaynta wamadiga habistiisa wamaxasta korintooda murti iyo dhammaanteed mustafo rasuulkiyo ومحمد هويدي نورتي ودمانتين مصطفى ورسولك ومحمد هويدي ومريم عمانيو وعيسى مامدي ومريم عمانيو وعيسى مامدي وهذا معان دمركو وهذا معان دمركو ومريم عمانيو وعيسى مامدي ومريم عمانيو وعيسى مامدي وهذا معان دمركو
sharafkeena wageesi midigtiisa wamudanka inanteena wamadal kufaankeena wamuuqa sharafkeena wageesi midigtiisa dhammaanteen mustafa rasuulkiyo ومحمد hooyadii murti iyo dhammaanteen mustafa rasuulkiyo ومحمد hooyadii ومريم عمرانيو وعيسى مامدي ومريم عمرانيو وعيسى مامدي وهذا معان دمركو وهذا معان دمركو ومريم عمرانيو وعيسى مامدي ومريم عمرانيو وعيسى مامدي